Come here. Good boy. Come. Good boy. Come. dhismahan iga dambeeya oo ah halka marka hore la dhiga boorsooyinka ay wataan dadka rakaabka ayaa waxa la ii sheegay in laga sameeyay jawaano ciid ay kaga buuxdo dushana laga saaray safiito taas ayaa micnaheedu waxa ay tahay haddii xitaa alaabta halkan la dhigay ay ku jiraan waxyaabaha qarxa si aanay ugu gudbin airportka qaybihiisa kale iyo dadka rakaabka ee meelaha taagan ee sugaya agabkooda markaas kadibna waxaa halkan la keenaa eygii baari lahaa alaabtaas oo loo tababaray inuu uriyo amba uu sheego walxaha qarxa ee lagu sida agabka dadku ay wataan sidoo kale elektrooniga uu ka mid yahay laptopyada ayaa iyana ka mid ah qaybaha sida tarbiyaysan eygaasi loo baray inuu ogaado haddii ay jiraan waxyaabo qarxa oo alaabtaas ay ku jirto waxaan la socnaa diyaaraddii daalo in lala raacay laptop watay waxyaabaha qarxa dabadeedna iyadoo hawada sare ku jirta uu ku qarxay taas ayaana sababtay in sidan loo adkeeyo ammaanka airportka magaalada Muqdisho qaybtan waa qaybta dhexe ee sidoo kale ee lagu baaro waxyaabaha qarxa ama hub haddii qof ka mid ah dadka musaafiriinta ay wataan waana qayb si aad loo adkeeyay sidaad arkaysaan waxay leedahay laba raajo oo dadku ay marayaan halkan ayaana alaabta iyo qofku waxa uu wato lagu soo reebi doonaa waxaan ka mid nahay dadka maanta u gudbaya gudaha airportka si aan u ogaano qaabka ammaanka loo sugayo airportkan weyn ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaan ka soo gudubnay qaybta dhexe ee raajada ama lagu baaro walxaha qarxa ama hub qofkii wato sidaad arkaysaan tani waxay la mid tahay sida airportada caalamiga ah ee security-gooda loo ilaaliyo maadaama Soomaaliya 27 sano la soo dhaafay burbur iyo dagaalo sokeeye ay ka jireen waxa dawladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya gaar ahaan dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay bilowday in dib loo soo celiyo adeegyadii dalka uu lahaa isla markaana laga shaqeeyo amniga muwaadinka waxaa mar walba la sii adkeeyaa ammaanka goobaha muhiimka ah ee shacabka iyo waliba dadka madaxda ay marayaan halkan waa qayb dhexe oo lagu jakimo amba lagu baaro gawaarida galaysa gudaha airportka magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay airportada caalamiga ah maadaama ay ka soo degaan diyaarado ka yimaada dalalka Yurub iyo meelo kale oo dunida ka mid ah dabcan waxaana uu qayb ka yahay si loo sugo ammaankiisa sida loo adkeeyo airportada kale ee adduunyada markiiba afar gaari la soo daayaa halkaan bay yimaadaan dadka laga dajiyaa waa la jeekimaa dadka gadaala la geeyaa dabadeed eyga loo la keenaa dhammaan baabuurta waa la furaa albaabadooda waa ay baarag eyga baara oo chicken gareeya markaas kadib waxuu gaarigaas diyaar u yahay inuu airportka galo oo ammaankiisu waa sugan yahay soo adigu warqadda wadataa iyo okay soo dheere meeshaan hadda taaganahay waxaa lagu jikin gareeyaa eedhikaarada lagu galo garoonka waxaana inay garoonka active u leeyahay iyo in kalena ayaa lagu ogaadaa markii la saara mashiinkaas eedhikaarka shaqaynaya wuxuu leeyahay thank you ka aan shaqaynayna wuxuu leeyahay for election dibna waxaan u celinaa markuu dhaho for election meeshan waa mashiin lagu controlo eedhikaarka active-ka u leh garoonka in lagu galo shaqaalaha ay wataan ayaa lagu controlaa inuu active u yahay inuu garoonka galo iyo inuu soo garoonka galin waxaan ku ogaan kartaa eedhikaarka markii la saaro kan active-ka wuxuu leeyahay thank you kan active-ka lehna wuxuu leeyahay for election ama laguma geli karo meeshan dibna waxaan u celinaa dib eedhikaarkan waxaa iska leh shirkadaha dulimaadka haddii uu active yahay iyo haddii kalena waxaan ku ogaan karnaa halkan thank you wuxuu active leeyahay inuu kalo garoonka airportada Soomaaliya maadaama jidadkii iyo wadanku uu runtii kala xiran yahay si free ahaan lagu tagi karo meel alla meesha aad rabto in airportada la qalabeeyo la tayeeyo la hormariyo waa qasab hadda airportka Muqdisho waxa ku xiga airportka kale oo muhiim ah kan Kismaayo ka mid ah Baydhabo ka mid ah kan Garowe kul dhamaan Boosaaso Gaalkacyo Cadaado airportadaas oo dhan marka waxay nooga baahan yihiin maadaama diyaarada ay ku soo degayaan maadaama shacab ay ka soo degayaan waxaan u baahanahay inaan si degdeg ah u horumarino airportka Muqdisho screeningkiisa
security checkskiisa inta la ismarsiiyo waad aragtay baaritaan tiro badan scanners ayaa la maraa waxaa la maraa eeyo ayaa jooga boorsooyinka iyo wax kasta marka hay-adaha ama wadamada ay diyaaradaha tooska u aadaan oo idil intay yimaadaan ayaga waxay iska fiiriyaan security-ga in si fiican loo assess gareeyo airportka Muqdisho waxay yimaadeen diyaaradda Kenya Airways waxay yimaadeen Turkishka kulli waxay soo dirsadaan experts yimaado khubaro ku takhasusay dhinaca security-ga way yimaadeen dhammaantood certification-ka bayna siiyaan waxay ogaadeen in airportkani procedure-ka la maro inuu ka wanaagsan yahay airportadooda ma ogiye kama liito sida awgeed waxaa naloo ogolaaday in aad toos u tegi karaan diyaaradaha Muqdisho ka baxa inay meel kale toos u tegi karaan